waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheego inay isdejiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay difaaca dalka kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah golaha wasiirada oo heshiisyo halis ah ku saxiixay kulankoodii khamiislaha ahaa ee maanta dhacay wasiir jaamac oo sheegay in imaaraadka ay ka difaaci doonto Itoobiya haddii dagaal culus uu qarxo xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya oo xoogeysatay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay golaha wasiirada ayaa heshiisyo halis ah ku saxiixay kulankoodii khamiislaha ahaa ee maanta ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho xilli mar kale ay u muuqato in xukuumadda ay galayso heshiisyo iyo sidoo kale isafgaradyo saameyn ku yeelan kara dalkeena mustaqbalka dhow iyo kan fog intaba haddaba maxaa looga hadlay shirkii golaha wasiirada maanta ee uu ka maqnaa ra'iisul wasaare Xamse isla markaana ay qaraaro iyo sidoo kale heshiisyo ay ku soo bandhigeen golaha shirkaasi golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa uga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda dalka waxaana sidoo kale lagu ansixiyay magacaabista mas'uul cusub shirkan oo ahaa mid xasaasi ah waxaa gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac iyada oo inta badan ay goobjoog ahaayeen wasiirada xukuumadda Soomaaliya dooda golaha wasiirada ayaana ahayd mid xasaasi ah marka loo fiiriyo shirka maanta heerkiisu iyo sida uu ahaa iyo in Xamse shirkaas uu ka dhuuntay ku-xigeenkiisana uu ku amray in uu gudoomiyo qaraaraad iyo go'aanana gaaray golaha ayaa ugu horeyntii ansixiyay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee magacaabista maareeye ku-xigeenka hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha kaas oo noqonaya Cabdiraxmaan Siciid Axmed sida shirka golaha wasiirada lagu sheegay intaasi kadib golaha ayaa guda galay dood kale oo ku aadan heshiis ku saabsan iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta oo u dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Shiinaha kaas oo isna shirka lagu meelmariyay heshiiskaas iyo safgaradkaasi dhex maray Soomaaliya iyo China sidoo kale waxaa shirka lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira amniga habka bixinta ruqsadda gaari wadista iyo dhaqangelinta canshuurta gadista taas oo uu dhawaan goluhu ka soo saaray qaraar lagu dhaqangelinayo waxaa kale oo golaha wasiirada ay ka hadleen ammaanka iyo dagaalka shabaab iyaga oo bogaadiyay guulaha ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka khamiis walba ayaa la qabtaa shirka golaha wasiirada Soomaaliya waxaana looga hadlaa xaaladda dalka ammaanka iyo qorshaha xukuumadda ee markaasi taagan kamanaashiyaha Xamse Cabdi Barre ee shirkii maanta golaha wasiirada shaki weyn ayuu ku abuuray inta badan shacabka Soomaaliyeed waxaana heshiiska Shiinaha iyo Soomaaliya ay maanta meel mariyeen golaha wasiirada uu ka dhigan yahay mid sii kordhinaya halista heshiisyada dalkan la galayo dalalka shisheeye isla markaana aan loo gudbinaynin baarlamaankii Soomaaliyeed ee awoodda iyo xaqa u lahaa hubinta sharci iyo heshiis walba oo golaha wasiirada ay la soo galaan dowladaha shisheeye dowladda Xasan Sheekh uu hogaamiyo in ka badan 7 dowladood ay la gashay heshiisyo amni iyo difaac oo ay ka mid tahay Turkiga Imaaraadka Uganda iyo sidoo kale Masar iyo wadamo kale oo ay horey heshiis ula gashay xitaa Itoobiya oo maanta aan isayno ay ku jirto dhinaca kale wasiir jaamac ayaa sheegay in Imaaraadku ay ka difaaci doonto Itoobiya haddii dagaal uu qarxo waxaana ay u muuqataa in hadalka wasiirka difaaca Soomaaliya uu meesha ka saarayo heshiiskii amni iyo difaac ee ay hore wada galeen Soomaaliya iyo Turkiga isla markaana tani ay noqotay arrin hadalhayn weyn ka abuurta baraha bulshada wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa tagay xerada General Gordon ee Muqdisho halkaas oo uu tababar culus uga socday ciidamo ay gacanta ku hayso tababarkooda dowladda Imaaraadka Carabta waxaana halkaas uu ka sheegay in Imaaraadku uu difaaci doono Soomaaliya haddii ay isku daydo Itoobiya faragelinta gudaha dalkan Soomaaliya wasiirka ayaa dowladda Imaaraadka uga mahad celiyay tababarada ciidamada xoogga Soomaaliyeed iyo kaalmada kale
ee dowladda Soomaaliya ay siiso Imaaraadka. Wasiir Jaamac ayaa sheegay in dowladda Imaaraadku ay kaalin weyn ka geysatay dhismaha ciidamada Soomaaliya. Waxyaabaha uu ku amaanay Imaaraadka waxaa ka mid ah sida dowladda Soomaaliya ay uga gacan siisay in amni lagu soo dabaalo gudaha magaalada Muqdisho. Imaaraadka ayaa Soomaaliya u tababaray ciidamada xasilinta caasimadda ee Muqdisho ee loo yaqaano Booliisiya Militaro iyo guutooyin kale oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo ku maqan furimaha dagaalka kuna baacsada halkaasi qawaariijta shabaab. Wasiirka difaaca ayaa sidoo kale u mahad celiyay dowladaha kale ee Soomaaliya ka gacan siiya dhismaha ciidanka oo dalkan u baahi weyn u qabo, isagoo ciidamadan cusub kula daarmay in ay ka faa'iideystaan tababarka ugana adeegaan dalkooda iyo dadkooda. Wasiirka difaaca madaxana furan ayaa warbixin ka siiyay dhalinyaradan halganka xoreynta dalka iyo halka uu marayo, isagoo ku wargeliyay in dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibadooda kale ee ciidanka xoogga dalka ay ka sugaan in ay gacan ka geystaan sidii argagixisada dalkan looga xoreyn lahaa. Sidoo kale wuxuu ka hadlay damaca Itoobiya ay ku doonayso badda Soomaaliya. Waxa uu yiri waxa la socotiin in baddeena iyo dalkeena la soo damaaciyay idinku ayuu dalkan difaac idinka sugaya. Dadka Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafadba, mas'uul iyo shacabba waxay ka siman yihiin inta ka mid ah dhulkooda aan la qaadan, ayuu hadalkiisa ku yiri wasiirka difaaca Soomaaliya oo tababar u soo xiray ciidamo cusub oo Imaaraadku u tababaray ee dalkan Soomaaliya. Imaaraadka Carabta sidoo kale waxa ay heshiisyo difaac iyo amni ay kula jirtaa dowladda Itoobiya, waxaana tani mar kale shaki weyn ay ku abuurtay dadka Soomaaliyeed oo iyagu aaminsan xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhaxaysa in Imaaraadku kaalin weyn uu ku leeyahay oo uu dabada ku wato Itoobiya. Hase yeeshee waxay u muuqataa in dowladeenu ay wax badan isku qasayso, ayna weli kala garan laadahay cadowgeeda iyo jiilkeeda ama qofka iyada la jira ee aan rabin dhibaateynta dadka Soomaaliyeed. Waxaana dowlado badan oo Soomaaliya maanta saaxiib ay la tahay intooda badan ay ka shaqeeyaan dibindaabiyeynta iyo dib u dhaca qarankan Soomaaliyeed. Ugu dambeyntiina xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa xoogeysatay xilli ay u muuqato inay gaartay meeshii ugu xumeyd ee xiisad iyo xiriirka labada wadan tan iyo markii Itoobiya ay saartay hanjabaad ah in aysan gacmaha laaban doonin. Itoobiya waxay si gaar ah uga digtay dhaqdhaqaaqa Masar ee Soomaaliya, waxayna sheegtay in arrintan ay halis ku tahay amnigeeda iyo guud ahaan gobolka. Sidoo kale waxa ay ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabo kasta oo ay uga hortagayso arrintan, iyada oo ku dooday in Soomaaliya uu uga baxay dhiig iyo dheecaanba sida hadalka ay u dhigeen. Haddaba maxay ka dhigan tahay hanjabaadda ka soo baxday Itoobiya? Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha soo kordhay ee la xiriira arrimaha Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuuna sheegay in hanjabaadan ay abuuri karto colaad hor leh, sidaa darteedna loo baahan yahay in Soomaalidu ay baraarugto. Waxay noqon kartaa in Itoobiyaanka yiraahdaan annaga Soomaalida wax badan baan gelinay, waan ka duuduubanaynaa, wixii hadda ka dambeeyana cadow ayaan u arkaynaa, oo ay ciidamadooda iyo wuxuuda kala baxaan. Markaasi meeshaasi waxaa moodaa in loo baahan yahay in Soomaalidu si fiican uga baaraan degto oo ay u fiirsato habka ay u kala guranayaan Soomaaliya iyo Itoobiya, ayuu yiri ninkan falanqeeya arrimaha caalamka. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in Itoobiya ay isku dayayso in Soomaaliya ay kala qoqobto iyada oo adeegsanaysa siyaasad soona marayso dowlad goboleedyada Soomaaliya. Dhinaca kale wuxuu ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Masar, wuxuuna shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay heshiis la geli karto dal kasta oo Carbeed oo xilifadeeda ah, wuxuuna intaasi ku daray in arrintani keentay xadgudubka Itoobiya ee heshiiska badda ay dhowaan la gashay Somaliland. Waxa kale oo uu sii raaciyay su-aasha waxa weeye waxaan oo dhan maxaa keenay? Soomaalidu ciidan xoog badan ma laha, marka inay xulifadeeda raadsato oo meel kasta marto waxaa keenay markii lagu xadgudbay madax banaanideeda, ayuu yiri. Waxayna u muuqataa in Itoobiya iyo Soomaaliya fooda ay isdari doonaan, sida ay aaminsan yihiin dadka falanqeeya arrimaha geeska Afrika. Saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. Nabadgelyo.